waxaan soo maray jeelka la yiraahdo Jeelgaadeen waxaan soo maray jeelka la yiraahdo Jeelgaadeen waxay soo qabtay ciidanka new booliska ku magacaaban ay soo dirsatay Itoobiya anigu umul baana marka 3 habeen umul shacabna waana qof urkoona liftal qabad kulana maanahay urkoona liftal la shaqeysana waa la soo qabtay marka aniga keligay maanahay 4 gabdhood oo mid ugu dambeysay ay markaa umulantaas wax saacad ah waanu inta umulaha ayuu korka guud waxaan ka in 12 gabdhood iyo 12 wiil ana lahaayeen 5 bari baan lagu howlgalay buuro la yiraahdo gobolada Ogaadeen yaan waxa ka soo jeeda gaar ahaan gobolka Nagab buuro la yiraahdo buuraha xeebta oo daaqata la yiraahdo anagana lagu howlgalay 5 bari baan lagu howlgalay 5 bari baa ciidan howlgal ah aan la soconaa anagu ilmaha waxaan noogu daraan jirtay kolka intaan surmino anaga ilmaha noogu kala didino ilmuhu qeydku noo qaban waayo in anagu aadno in socon kar weyno ay nafta nolol sarka ilmaha oo nagu waajiro intaas baan anagu ku jirnay kadib waana la soo qaaday meel baan la soo saaray waxaana la keenay degmada la yiraahdo Galaash degmada Galaash la yiraahdo la keenay waxaana loo isticmaalay anaga jirdil aan la soo koobi karin xamaga waana la qaban jiray faraha xamaga waana lagu qaban jiray maryaha inta laga dhigo godka dhiigga wiilasha meydka shalo kale amaanto kale la gowracina lagu xareeyo ba waxaa la dhigi jiray hadayda naftiina qiba ka qaban sida wiilashaas oo kale yaa la idin galiya si degdeg ah hadaydan waran maxaana anagu waramayna waan baanahay gurigeennagii iyo guriga hooyaday reebaadiyon ku dhalanay baan laga soo qabtay anagu waxaan dhahay naftu mana awasho mana aakhirto waxaan anagu aan dambi aanan gelin bay rabeen inaan isku furno urkoona lifna ku anagu macnaa urku inuu meelaha socdo waan arkaynaa ama meelaha isku haystaan ama ka dagaalamayaan laakiin saalqabada anagu urkoona lifmaan ku lahayn waana la keenay jeelkaas aan ku jirnay fiidkii markay tahay maalintii waxna la dirdiro waxna la qidaado waxaa laga yaabaa ilmaha adoo umula barta banaanka laga dhigaya waxaa lagu fadhiisanayaa suudiga cadceeda waxaa lagu dhiibayaa 2 dhagax 12 maanta waxaa lagu dhigi iska lawyaha laab maryaha korfay suudiga kulul baa looyaha lagu dhigay 2 dhagax lagu dhiib waxaa lagu dhihi gamcaha ma doojin kartin nin qori wata lagu ag fadhiisanaya ilmahaagi adigu iyo waxaas iyo ilmo oohin iyo waxaas lama qoro haduu baqteen waa ilmo u bayo baqtiyay haduu baqteen isaga u taala 12 maanta dhidid iyo dhaacinada dhagaxyaha kor u baacinay dhidid iyo dhaacin xafirta ka dhamaanaysa xaqana waxa ka fadhiyay nin qori buuxaysta in yar hada ikhtiyaar laan babkasiis qabanaya baa lagu leeyahay aday ku taa waxaa laga yaabaa 12 maanta inaad aqaanto wiilasha sidoo kale isku guri u yar baas aan oo kala baxsanayd wiilashu sidoo kale way la qabeen waa la baacin wiilasha mud iyo dareer intii laga dhigo oo 30 xaqana 20 qabato xaqana 20 qabato waa la oran qabso wariya ma taabatay mastarada aqriisa guri markuu waan taabtay baa la dhig faraha ka qaad markaas halka laga soo day qoriga shubkiis beenad kala darayo qofka la gowracayo kow iyo laba lama soo oran karo aniga iyagan kula hadlaya waxaan mulanaa marka muddo yar 40 kamaana bixin waa la qaaday waxa la dhahay sheek nimankoon ururkan agtiina dagaal ka dhacay meel agtanada uu dagaal ka dhacay reerka dushiisa nimankii dhaarti dhaweyta meesha kaga burburay ee ogtahay reerkii dushiisa caanaha looga qaaday geelin caanaha looga qaaday sheek bade nimanka aanu lama soconin baan ku mana raac wax aniga aan la socday iyo waxa xidhay dhigtaan kama tusaale bixin karaan ku dhaan haddaadan sheegin anaga qabtaad ku sheeg garanayna la yiraahdo si marad go'ban wana garbasaar weyn waa laga dhuftay ilmihii la iga dhigay gogarada afayga iga istaaganeen ciidan wardiga hal dirac biseet igu soo reeb masarkan madax ku qabixta wiis gogarada iga istaagay garbasaartan qabiga tuuray gambadii iga tuuray wuxuu dhahay qabta aad ku sheegayso ana ku fasili doono xamagow bacwilkeen basbaas loo waxaas way dhamaatay bacda intii basbaaska loogu shubo basbaaska iyo kurka lagu gal markaas xarig talbinahooda kan dadka lagu dabaa korka lagaga noorin kolkaad adigu intay xaariya ka dhamaadaan bal dhaqtay sida meedka yaa goor dambe soo miirsan markaas soo miirsan hadana ka bixi waxa lagu dhihi isgal maxaan isu galaada waxaan ahayn ma isgal maskax waxaan ahayn leeyahay sheeg meesha sheeg kartaa waxba ma garanay baad soo istaagado
markaa soo miirsatay aan soo miirsaday baa waxaa la dhahay haye ma sheegaysid macalka inta kuma sheegayso maaha markaa indhaha waxa ma kala arko indhaha ilmadu way iga socotaa waxa la waxan kala arka mala baa waxaa la dhahay dhig ilmo uu qaad wuxuu igeeyay god xiradhig god uu igeeyay kolka u horeysay waxaan arkay wiil saa u soo jeeda oo kurku xagga kore ka gowracan yahay luquntan ay saas soo doomarsan taas ay soo fiirin indhii aan wali isku qaban meedka kurku ka go'an yahay laakiin indhaa wali isku ma qaban waxaan arkay haddana xaggan dambana ii daba mar xagga dambana ii daba mar marka xisku markaas iga tagaanay malaha show hadal iyo huwan iyo waxba ma kor mahayn xitaa dhulka ma dhowri jirin dadka aan markaas ma garanayo waxa la dhigi jiray cirka ma saa u dhowray muddo markaas ba qola kala meel ka soo hadasho on marka kuwii degmada galasha joogay waxa la dhahay gabadhaas in yaraan idinku soo gaadho markaana ani markaa waxa iyagu ileeyeen Allahumma dhihin laakiin markaa waxay leeyeen toog baa ku soo baxay in aad sida kuwaas hadaad sheego weyd inaad u dhimanayso waa la ila soo hadlo waa la soo bixiyay banaankii baa deedna aniga oo garbasaarta biseeta qaba iyo kabta dirca damiirkan waxaan garanayaa inuu dirca kor igu qaado dirci uu kor igu qaado dirci dilaacay ilaa wuxuu dilaacay intaan laag dirci anigu marka laba garbasaar sulkaan soo qabtay banaanku i keenay wuxuu dhahay nin baa ku iman doona ninkaas soo arqab eheliya daaweeye waxa aan ku soo marinay ma sheegi kartid ninkaas markuu uu ku yimaado arqabadu oo aan ku soo marin hadaa sheegta adaa dhimana anu marka uu saayilay ma ba joogo qof damiirkiisu joogo mi ama hadlayo hadal u furan mi anu markaas iyada qof hadal kolka ka furan yahay ma bihiba inuu hadal maan maqay laakiin saas uu kuleeyahay leeyahay gabdhiba kolka la soo dhixfirsiye maxaabiista waan imaaday bartii waan imaaday dadkii igu sidaa imaaday hadal baa leeyahay waay marka muddo 2 bilood iyo 10 habeen ba hadal leega waa markii hadalkii leega waay ba in badan yaa meermeeray ehelkii ku qoladan barbaraalaha waxba aan soo hayno laakiin qof gaaloobo barbaraalaha gaalada raacaya ay soo dirsatay Itoobiya dadka Itoobiya soo dirsay dadka nolosha ku maraya ba wuxuu yiri maxaa ku dhacay gabadhan de waa kan way hadli laadahay hadalkii ba leega laayay booji baa la saamaan ku arag bes waa la qaaday waxa la ii fasiliyaa bay waxa la dhahay ilmaha waa la reebaya jeelka lagu haynaya gabadha inta qaadad meesha geenge abay uu qaaday qolo xira oo shariif oo meesha kolka degmada kortaaliya la iigay jeelka gobolka galasha ku jira xitaa wali jeel waadin ma soo gaadhay adu qoladii waan soo hadlay 2 bilood iyo 10 maalintii 11aad baan soo hadlay maalintii kolkaan soo hadlay ba kolka kii meesha yiraan gabadha arko uu yar maqan hooyaday way keentay jeelkii waa la ku soo celiyaa leeyay waa la igu soo celiyay waxa la yiri hooyaday waa laga qaaday meel xire ciidan la geeyay xitaa gabdhahay hadaad sheegtid baa lagu yiri dhibka ku soo maray isjir baa lagu yiri adeer labadeena ay suran labadeena ayaa suran cidii nooma dhaxayso hooyada aabaha ehelka kan kule ka tagaya kan ha ku ka hawlgalaynaa hadaad sheegtado dad u sheegtid birka maal wuxuu dhibay ku gaadhaano kuma naan gaarsaniyay hada laakiin kolka hore xukun baa lagu qabtay waa lagu tooganayay hada laakiin lagu ma tooganayo waa inaad xal yiri aad aamusto tirogadana ma waa la soo gudbiyay gaar qabaal anagoo intii adawada loogu soo tuur waa la wareystay uu yimaado adeer maxaa ku qabsaday wax baandha waayo qofkan gaalka oo bule aamiin waxbaan ku dhahay waa maalintii dambe baan la soo gudbiyay maalintii markii la soo gudbiyay baa waxaana la keenay jeelka la dhaho jeelka meel asluubta la dhahaana la keenay asluubta markii la keenay baa waxaan fiidkii baa anagu caruurtii noo hurrudo aniga iyo gabadh markii dambe jirdilka ku dhiman doonto oo walaashay ah hooyaday daadi ka yareeday dhashay baa waxaana la yiri labadiina gabdhaha la mid ma tidin ka soo dhaxkaa caruurtana dhiga totalis waan dhigin caruurta waxaana la geeyay ceelka la dhaho gidibkana la geeyay maryahana laga dhigay hal buumahana lagu reeb farta fariirada leeyahay laga xidhay bihii bana lagu riday
أنا مركا حسب مركو نقطة عندها كعمني إنسان كعمني إن أف كعمني وربع سنتي بين السوب هي مرة بطل بيه بين الجور ذا جدك وقربو ضدك الجوكسين سعيلة مالك استعمل مركا بيها إلا دقة وانك درجنا عنه ما هذا كرر مركز ما أنا هاي مركز ده من ملي وأنا ماني ماشي ونقص بحيان سون كرر كنت استو يعرف كانوا لوجو دكتور مرك بيه بين الجو سهرقس marka gabadha dhimatay degtan arbaaxada laga dhuftay degtaas u dilaa qanjidhada suunkii ay ku wadeen bay waxay soo rogtay dhiig haleela suunkii ay soo wadeen baa waxay soo rogtay gabadhii dhiig haleela ana jirdilkii hor iyo biyihii iyo humaajiga baa isqoomay dhiig haleela walaasheelka ku soo rogtay biyihii halkii baa anagana laga soo rogay halkii baa haddana aroortii dambe iyo jalwadeena loogu gudbiyey waxaan ku jiray muddo 3 sano jirwadeen iyadoo ay ku dhimatay gabadhii walaashay ee sidaa jeelka oo jirdilka u dhimatay oo dhiig xag hore xag dambe ka bitay waxaan ku wada hayn jiray anakii umusha aan ku ahaa iyo kayad umusha ku ahay qaab waxa ay maalinta igu fasal maxay maalinta walaashay min nafbax ee meedkii kolkaan afka saa u qabtay ana afka sida meedku waaya walaashay ay